السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه أدبن أوضة السلام يا دمانبا إنت دونيسة إني كفايدي ستو وحبار الشدة هجادة عريقة وأن دون يهركن إناكو بحيو أن هجادو هدي أنفال يركب بحيو مركا قوار يسوحا سمين دونا hababka ugu fudud aan isleeyahay ugu fududahay taasoo aan filayo in sida ugu degdegsiyaha badan aad ku baran kartid carabida higaada carabida macallin carabi ama higaada ayaan muddo soo ahaa 15 casho xitaa waan awooday inaan qof ugu baro ama ku baro waxaan doonayaa maanta inaan casharkeeni koobaad lagu soo bandhigo casharkan ku muuqda kaaga muuqda waa casharkeeni koobaad waxaan kaloo iyadana aan bilaabi doonaa koorso xagga Soomaaliga oo iyaduna easy ama aad u fudud oo iyadana saas oo kale waqti yar muddo ah aad ku baranaysid carabidu wax weyn ma aha wax adag ma aha waxaan isleeyahay inay ka fududahay barashada luqadda Soomaaliga ama alfabeetka Soomaaliga laakiin dhibaatada waxa weeyaan hadba macallinka sida uu u soo gudbinayo oo ardayga uu ugu soo gudbinayo maanta waxaan isku dayayaa in Ilaahay wuxuu i baray inaan bulshada gaarsiiyo waxaa jira laba hab inaan kugu bari doono habi waa habka carabida oo la kor dhigay la hoos dhigay la goday iyo waxaas oo dhan oo carabi loo bedelayo fatha kisra duma mina waxa weeyaan Soomaaliga oo deeta hadda la kor dhibay la hoos dhigay la goday oo kale la leeyahay labada hab waxa sii dheer iyadana habab kale oo aan doonayo in aad ila fahantid adiga laftigaagana ee ka arday ahaan waxaan ka doonayaa wax walba oo aan ku iraahdo in aad qabatid wixii wax walba oo aan ka reebana inaad iska daysid haddii aad intaasoo waxyaabood aad samaysid oo wax walba aan ku iraahdo waxa samee aad samaysid waxaan ku sheegayaa waxa aan ku tilmaamayaa inaad baran doontid oo ila baran doontid oo manhajkan aan ugu talagalay ardayda carabida danaynaysa higaada carabida danaynaysa in ay aad wax ugu bartaan systemkan waxaan ugu talagalay dadka aan waxna qorin waxna akhrin laakiin haysta wax ay ku daawadaan waa yeelka caruurta dadka dhexe dadka waxbarashada ay ka weynaaday ma xilligii waxbarashada soo mareen aan gelin fursad u helin dhammaantiinba waxaan jecelahay inay koorsadani ay noqon doonto taa doonaysay adiga daawanaya waxaan ka codsanayaa koorsadan markii aad eegtid oo aad casharada ka faa'iidaysatid inaad u gudbisid bulshada kale taas waxa weeyaan waa wax ku saaran dushaada marka cilmigan aad baratid inaad u gudbisid walaalaha kale aan bilaabano hore waxa jira waxyaabo macallimiintu ay ku wareeriyaan ardayda oo ay wareer iyo buuq ay kala kulmayaan waxna aan lagu baran meelna ku gaarsiinayn waxyaabahaas oo dhan baan ka ilaalinayaa waxaan kugu duwayaa dariiqa ugu fudud ee aad ku baran kartid luqadda carabiga higaada luqadda carabiga qowda okay marka ugu horeysa casharkan inoo muuqda waxa lagu soo baray alif ba ta tha jim ha kha dal dal qaab noocaas oo kale kan waxa lagu soo baray alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra za سين
شين صاد ضاد ض ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء ياء. لكن وخلط خلط هاد وين ويان ereyadaasoo dhan khaladadu waxay ka yimaadeen meelo aad u fara badan. marka ugu horeysa khaladka ugu horeeya waxa weeyaan iyada oo aan lagu dhawaaqin. tusaale ahaan tan oo kale ba lama yiraahdo. tan oo kale ta lama yiraahdo. ta lama yiraahdo. laakiin waxaan doonayaa waxyaabaha la yiraahdo inaan kuu sheego. kuwa sida saxda lagu dhawaaqay ee sida saxda ah ee loo yiri sideeda tooska ahi waxay noqonayaan kuwan. jiim caadi baa jiim loo yiraahdaa. tan siinka caadi baa loo yiraahdaa. shiinkana caadi baa loo yiraahdaa. saadka caadi baa loo yiraahdaa. daadka caadi baa loo yiraahdaa. caadi baa loo yiraahdaa iyadana. waqooyinka caadi baa loo yiraahdaa. qaafka caadi baa loo yiraahdaa. kaafka sidoo kale. laamka oo kale. miimka oo kale. nuunka oo kale. wowga oo kale. intaasi sideeda saxda ah baa lagu dhawaaqay. inta kale waa khalad, laguma dhawaaqi karo saa. jiimka keliya ayaa halkaasi jiim lagu dhawaaqi karaa, laakiin xa may. xaada saa lama yiraahdo. okay, muxuu noqonayaa haddaba xaadu? xaada haddii aan xa odhanayo waa inaan u sameeyaa calaamada korka sare uga sameeyaa. kha'da markaan dhahayo ana calaamada korka sare uga sameeyaa. okay, labadanna waa la mid. iyaguna waxa weeyaan waa kuwa caadiga lagu dhawaaqo deel iyo daalka, laakiin ra'da iyo za'da iyo waxaasoo dhanba qaabkoodu taamaha. alifkana waa la mid. alifkana waa kuwa sida saxda lagu dhawaaqo. alifku waa kaa isagu isma bedelayo. alif waxmale weeyaan. laakiin inta kale aan dusha sare calaamadaha ka siiyey qaabka loogu dhawaaqayo, haddii aad qaabka ugu dhawaaqdid waxay hadhowta u darnaanaysaa in aad si fiican u baratid luqadii carabiga ahayd. waayo hadhowta waxay imanaysaa xa kale oo aan qaabka loo qorayn. labadii xa batana xa ah bise tana xa ah. labadii erey oo isku dhawaaqa baad arkaysaa. waxaa jirta maamaha dhan oo ah shiikhow ama wadaadow alif waa kor dhigan yahay, marna waxna ma laha. adiin baana yidhi yacni alifku marna waa kor dhigan yahay baa lagu leeyahay, marna maaha. marka waa waxyaabaha isdiidaya baan kaa doonayaa inaan ka hor istaago. marka waxyaabaha isdiidaya casharkan ku xiga baan insha allahu aan ku dhigan doonaa. xiisadana waxaynu ahayd xiisadiinii koobaad ee hore dhaca ahaa. marka aad iyo aad baan in salaamayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.